dowladda Turkiga oo shaacisay in ay dib u bilaabi doonto wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland ee ka dhacay magaalooyinka ku yaala dalka Turkiga haddii aan lahayd Ankara ama Istanbul si halkooda loogu sii wado wadahadaladii muddooyinka ugu dambeeyay hakadka ku yimid warbixintaas ayaan jecelahay inaan ku wadaago daawade haddii ay tahay markii ugu horreysay muuqaalka kusoo gaaro like star siin share garay si uu saaxiibada u gaaro page-kana follow dheh dowladda Turkiga oo dhawaan ka hadashay doorashooyin ka dhacay maamulka Somaliland oo ku soo baxay Cabdiraxmaan Ciro codad gaaraya ama codad ka badan 74% ayaa dowladda Turkiga waxa ay sheegtay in Cabdiraxmaan Ciro ay ka rajeynayso ama ay ka filayso in uu dib u bilaabi doono wadahadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya oo muddooyinka ugu dambeeyay hakad uu ku yimid taa oo sababtay heshiiskii xukuumaddii hore ee Somaliland uu madaxweynaha ka ahaa Muuse Biixi Cabdi oo la galay dalka Ethiopia taas oo dowladda Soomaaliya si weyn ugu soo horjeesatay walibana khilaaf xoogan dhaliyay safaaradda dalka Turkiga ee Soomaaliya ayaa barta Facebook waxay ku sheegtay in ay dib u bilaabi doonto wadahadaladii dhowrkii sano ee ugu socday magaalooyinka Istanbul iyo Ankara maamulada ama maamulka Somaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya si loo isku soo dhaweeyo labada dhinac tan iyo sanadii 2012 waxa maamulka Somaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya dhowr jeer dalka Turkiga ugu qabsoomay wadahadalo labada dhinac ee looga arinsanayo sidii labada dhinac wadahadal ugu yeelan lahaayeen midowga iyo sidoo kale dib u soo laabashada maamulka Somaliland in ay dib u midoobaan labada dhinac arintaas ayaa muddo dheer socotay balse sanadihii ugu dambeeyay ama sanadkan haatan ku jira horaanteedii ayaa fashil weyn uu ku yimid kadib markii xukuumaddii hore ee haatan talada loogu guuleystay ama doorashada loogu guuleystay uu madaxweynaha ka ahaa Muuse Biixi Cabdi ayaa khilaaf xoogan dhaliyay kadib markii uu heshiis sharci dara ah ee dowladda Soomaaliya ay ku sheegtay midaasi uu la galay ama uu la saxiixday dowladda Ethiopia oo ra'iisul wasaare ka yahay Abiy Ahmed heshiiskaas ayaa ka dhigan in maamulka Somaliland ay Ethiopia u saxiixday xeeb 20 kilomitir kiri ahaan ee ugu saxiixday dalka Ethiopia taa beddelkeedana dalka Ethiopia ay ku sheegtay in ay siin doonto maamulka Somaliland i'tiraaf ama aqoonsi ay ku aqoonsan tahay in ay Soomaaliya inteeda kale ay ka go'day dowladda Soomaaliya ayaa arintaasi si weyn u biidiiday ama si weyn uga carootay walibana ka hadashay madax banaanida dhuleed iyo sidoo kale midnimada dalka Soomaaliya walibana Ethiopia arintaasi meel ugu dhacday dowladda Soomaaliya ayaa arintaas ku eedeysay maamulka Somaliland oo markaa madaxweyne ka ahaa Muuse Biixi Cabdi heshiiskaas oo dhacay horaantii sanadkan maalmo ka hor heshiiska ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ku kulmay magaalada Djibouti halkaas oo ay shir ku yeesheen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo markaas ay ka wada hadleen arrimaha geeska Afrika gaar ahaan arrimaha Soomaalida iyo dhulka Soomaalida ay degto walibana wada hadaladii u socday labada dhinac ee Somaliland iyo Soomaaliya balse taa kadib maalmo ayaa ka soo wareegatay markii maamulka Somaliland ay heshiis la gashay dalka Ethiopia haatan dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay doorashada la doortay Cabdiraxmaan Ciro oo kaga guuleystay xisbiyada kale iyo sidoo kale siyaasiyiinta kale uu u horeeyay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi uu kaga guuleystay codad tir ahaan aad u badan taas oo muujinaysa in ay dadka shacabka ee Somaliland ay aad u dhibsadeen xukuumaddii Muuse Biixi walibana qaladaad badan uu halkaasi ka geystay ay ugu horeysay heshiiskii uu la galay Ethiopia iyo sidoo kale dagaalada gobolka ka socday gaar ahaan Khaatumo ee halkaasi dagaal badan ay ku gashay ciidanka Somaliland ay ku galeen u dhaxaysay jabhadda ka soo jeeda Khaatumo iyo sidoo kale ciidamada taabacsan ee maamulka Somaliland Turkiga ay haatan ku rajaweyn in sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro uu halkaasi u furi doono waddo ay ku wada hadlaan Soomaaliya iyo Somaliland walibana halkooda ay ka sii wadaan wada xaajoodka u dhaxeeyay labada dhinac walibana halkaasi ay ka bilaaban doonto isku soo dhawaansho arintaasi loogu arinsanayo Turkiga ayaana sidoo kale uga hambalyeysay shacabka Somaliland doorashada dimuqraadiga ay halkaasi ay ku qabsadeen walibana codkooda ay ku cilbixeen ay ku doorteen hoggaanka ay ayaga rabaan walibana muujiyay in ay tusaale cad u yihiin Soomaalida inta kale ama maamulada kale in ay ku daydaan maamulka Somaliland Turkiga ayaa intaas ku daray in dhawaan ay wada hadaladaasi furmi doonaan sidoo kale magaalooyinka Turkiga ee Ankara iyo Istanbul ee ka dhici doonaan wada hadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya oo in muddo ah hakad ugu jiray walibana haatan ay rajeynayaan inay dib u bilaabmo daawada sida u aragtaa wada hadalada la rajeynayo inuu dib u bilaawdo ee u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya oo ay garwadan ka tahay dalka Turkiga inuu dib u bilaawdo fariintaada
ama ra'yigaada noogu reeb qaybta hoose ee commentiga. muuqaalkan hadduu kusoo gaaro like saar, siina share garay si saaxiibada u gaaro. waad ku mahadsantahay daawashadaada.